بسم الله الرحمن الرحيم waxaan gelaynaa historyga dadka ama taariikhda suu carabka ahaan jiray jaamac duule ceelkaa gallaadiyeed iyo ceelkaa dhudub iyo ciddaan majeertoonoo fadhihi jidhay kula hardamay balabaad ayagaa ka ahaan jiray dadka iyo dowladuhaas iyagay wax ka weydiin jireen jaamac duule wuxuu ku talagalay waxaas inuu wax ka bedelo aakhir wax loogu wado lagu dagaalama waa ku guulaystay ceelkaa dhudub uu fadhihi jiray dowladda etoobiya ilaa gobolka doollo jaamac baa wax laga weydiin jiray meeshaa waxau sheegana wax saxiix ahay ahaay reer daaroodna waa ku daba taagnaay ilaa waa kaga guulayso dowladda etoobiya ilaa gobolka la wareegay ciddaan abtiyaasha baa marka jaamac daba gashay jawaabihii ay ku dagaleen mid waliba jawaab buu ka baxshay qodobka koowaad dowladda etoobiya iyo markii la salaamo gaaladaas xoogaa madaxa lagu dhin jiray majeertoonku marka weligood dhalada wada dhigan jireen jaamac amxaar buu inta salaamay buu xoogaa saas madaxiiye jaamac waa gaalowday maanta amxaar u sajuud ma waxaad ka xunteen buy halka maroo anagu ama reexaan u hogbaday 3 kun oo majeerteena maalintii wejiga dhigatee waa ku bahdilahayay su-aashaas waxaa kale oo dhacay oo saxiixa oo jira waxay yidhaaheen jaamacow sadarada iyagaa haysan jiray dowladaha iyagaa noqon jiray bilima malaysarku iyagu ahaa beresente maxamed siyaad barre markuu madaxweynaha noqday odagaanna awowgay weeyo wuxuu lahaa xoogaa suul dhinac uga loocan bay weligood ma weydiineen waxay ahaen jaamac adeenu goormaa suulku sidaan ku noqday majeerteen baa ku yidhi suulkaan goormuhu sidaa noqday waagii hore indhaha kor ku fiirin jireen cirkaad u dallacday maxamed siyaad barraa dhalada idinkaga soo degay haddaad hoos dhugateen suulkaygu weligii siduu ahaa karbuuro yaroo kaax badan baa dhalada idinkaga timid waxaa dhacday ceelkaas waxaa xukumi jiray meeshaa layidhaaha gaawido oo kula hardamo reer cabdille ah waa ninka rasheeryada iyo xuduudda etoobiya kordhiyey oo gallisoor ku dhoweeyey tuurdubi ku dhoweeyey asagoo dadka hawiyaha ku nacaynaya ninkaa taladii waxaa kala wareegay jaamac duule dowladda etoobiyana asagay waddanka wax ka oran jirnay wuxuu ahaa xafiis kasta la yidhaaho oo hadda dhudub ku yaallay iyo ciidamadiisu joogi jireen halkaasu ku haysan jiray waa wax majeerteen yaqaan oo mareexaan yaqaan oo caan ah 17 qol oo kastanka la yidhaaho haddeer weli sida u dhisan iyo ciidamadiisa fadhihi jiray xaruntiisana ahayd etoobiyana halkaasay kala xiriiri jirnay wuxuu ku magacaabay taariikhdii u dambaysa oo dadka magacaabay xilalka u dhiibayay degmada gallaadi baradsaab waxaa ka noqday ninka la yidhaha haamid nin weerdhax oo reer wardheera ah weyne cabdilla cali dharaara gobolka doollo waxaa ka noqday abakaare maxamed sabartar waa nin weerdhaca oo ree gadiida oo ree axmedeeda abakaar ku-xigeenka gobolku wuxuu ahaa nin kale salaad diirshe waa nin weerdhaca oo reer roobla ah afartoodaas baa gobolka doollo wax laga weydiin jiray dowladda etoobiyana kala xiriiri jirnay taariikh qoran weeye wuxuu ahaa nin magac dheer nin majeerteen yaqaan nin hawiye yaqaan nin mareexaan yaqaan balabaad awal amrina halkaa ka ah hadda oo laga bilaabana waa looga dhaqmaa waa ninka la qaybsaday xaduudda markii la qaybsanayo dawaha ceelcad markii la qaybsanayo ninkii la qaybsaday buu ah mareexaan wuxuu helay oo daw ahaan u siiyaa isagaa ka joogay iyo nin kale wuxuu daw ahaan u helay 6 kilomitir oo dheerara iyo 4 kilomitir oo babaca cumar maxamuudna waxay heleen 600 oo tillaabo oo dheerara iyo 300 oo tillaabo oo babaca reebicyaha waxay heleen 250 tillaabo oo dheerar ah iyo 150 babaca dabka beerayaal meesha la yidhaaho ambiyaha lahayn buusaa haddii ay baryootay dadkuna eeryahay jaamaca dowladda biyaha leh wax la keenay konton buu hoos u soo degtay oo bardayga afkiisu keen
wuxuu ahaa ninkii majeerteen saa dawda kula qaybsaday wuxuu ahaa ceelka weyn oo gallaadii laga xukumo oo dawdu iyo soohdibaha kala sheega ninkii rakibay ceelkaas oo daw ahaan ku muujiyey iyo juhooyinka jaamac wuxuu ahaa nin taariikhyahan ah nin wuxuu ahaa abbaaduule ah nin wuxuu ahaa haddii alla kuu reey caalamku yaqaan ingiriis iyo talyaani wuxuu soo maray ciidamadii talyaaniga wuxuu ahaa kubratare hal caqiid buu ahaa 6 guutuu wey ilaa ciidamadii talyaaniga ah kabacdina gobolkan dooluu ku soo wareegey waa ninka dhulka saa u dhigay waa ninka saasa shisheeyahoo dhan ama dadka ama hawiyahaada ama jeerteen ahaye waa nabcaayeen mareexaankuna galiiliyaa ka kicisindhay jaamac duule aqoontiisii iyo asalkiisii iyo taariikhdiisii iyo histarigiisii waxaa la rabaa dadku markuu yutuubka soo gelaya ama wax dhiganayo dad magacaas oo kale leh ama histarigaas leh inay goobta keenaan waabaa saas dhacday ay odhan yaa loo baahan yahay hadda xaaji axmed markii la aado